الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنتي أو بشكوبات لبيه طبعا أي تهي لبكون لباتن يكو وأن شوقنا مسجد كي الصحابة مقالة مقدشو إلهي سبحانه وتعالى وكم مهتصن وحين لا شوقه dadkii laba usbuuc ka hor waxa weeyaan aan soo dhignay oo aan iri helo gurmado gabadhii Naciimo Nuur Maxamed ee labada kaliyood ay fariisteen sheegnayna in waxa weeyaan fiisadii u soo baxday Turkiga loo qaadayo walaasheed kali looga bedelahayo lacag 30 kun ay u baahan yihiin laba usbuuc gudahood alxamdulillaah thumma alxamdulillaah lacagtii 30 kun ahayd oo waxa weeyaan aan soo bandhignay way heleen caa'iladii wayna haystaan ilaahay baa ku mahadsan tigidhadiina waa u go'an yihiin waxa weeyaan saddexdii qof oo baxaysay labada gabdhood iyo wiilkii walaalkood ahaa tigidhadoodina waa diyaar waxayna baxahayaan bari oo arbaca ah ilaahay idankiisa 13ka bisha koobaad 2021 oo bari ah maalin arbaca ah ayay baxahayaan waxa aad iyo aad marka waxa weeyaan wax loogu farxo ah qofka walaasha ah ee dhibanaha ahayd ee inta dhibanayd caailadeedii iyo qoyskeeduna ay la dhibanaayeen in ilaahay subxaanahu wa ta'ala waafajiyay dad walaalo ah oo muslimiin ah ee daafaha adduunyada jooga dalka iyo dibaddaba in qof walba wax yar intuu soo bixiyo ugu deeqay qaar baa bixiyay $1 qaar baa bixiyay boqolaal waxaan leenahay haddii sidaas oo kale walaalayaal la isku garab istaago oo la isugu kaalmeeyo qof wax dhibaa oo cusleeya bulsho oo dhan ma cuslaynayaan annaguna ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisa maqaam weyn baan uga gaaraynaa maxaa yeelay nebigu waa ka yidhi sallallahu alayhi wasallam wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih inta ilaahay addoonku u kaalmaynayo walaalkiisa kale ilaahay baa asagana kaalmihiisa ahaanaya oo micigiisa ahaanaya oo u kaalmaynaya maadaama aad qofkan dhibanaha ah aad waxa weeyaan adoon aqoonin isku meel aynan ku noolayn jeebkaaga intaa wax ka soo bixiso aad ugu kaalmaysay waxaad ogaataa in ilaahay adigana uu ku kaalmaynayo kaalmada ilaahay uu ku kaalmaynayo ayaana ka weynin badan midda adigu aad u fidisay walaalkaaga muslimka ah waxaad ogaataa ilaahay wuxuu leeyahay waman axyaaha فكأنما أحيا الناس جميعا قفكي نولية وحويان بدبادية نف قئيسة وحلمدي هيدتك دمانتو دي بالشدي مد بدبادية بلمدية وحو النبي يري عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل قفكي أودا إنو أنفع ولالك سوارها أنفعه بالشدو وحيكو وذا النور شهي وهرمركو قارتا وإلهي أقولنا حريستا ذاتك ضعفاء ودبانيالك والدولة أمقان آن لأرق وهيئة أمقان آن لأرق ووحويان آدي آد فرح بضان إنينو إلهي أقولنا وانه وأينو أكالمينو وأينو قرب استاقنو شالا هدين مروق أي هيسي وإنتاس أصنا أي مروق أي هيسي ما أنت وحويان عائلة دي يقويسكي وفرح سيهين أسبوعي الله وشربا كليها لقد هايي gacmihii waa aragteen dhibaatada gaartay laakiin alxamdulillaah waxaan rajaynaynaa gabadha yarta ah oo soo kortay oo hadda soo qaan gaartay waxa weeyaan insha Allah inta u dhimanna ilaahay inuu u dhameystiro ayaa ilaahay uga baryaynaa farxad iyo wanaag iyo caafimaadna ay ku noolaato intii hantidaan la baxday oo garab istaagay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala badal khayr qaba ilaahay ha idin siiyo miisaanka xasanaadkana ilaahay ha idin saaro sadaqada aad la baxdeen bedelkeeda ilaahay idankiisa waxaa ka dareemaysaan caruurtiina
iyo ahalkiinna iyo naftiinna ayaad ka dareemaysaan kuwa banadoo idinka mid ah ayaa u bixiyeen lacagtooda iyo dhaqaalahooda markay bixinayeen in waxa weeyaan ilmahooda oo ka xanuunsan ilaahay ugu caafiyo allah inkugu caafiyo kuwa ilmahoodii ay ka lumeen gaalada ay ka raaceen oo sadaqada ula baxahaya ilaahay faraj inuu ugu furo degdeg ah faraj aa ku faraxdaan oo degdeg ah ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala allah inkaga fidiyo ilaahayna ha inkaga furo meesha ka soo bixiseen bedel ka khayr badan ilaahay ha inkugu bedelo haddana waxa weeyaan waxaan kelimad yar siinayaa aabbihii gabadha dhalay sala allaahuma calaa nabiyina moxamed walaalaha muslimiinta oo noo gurmaday oo gargaarka wanaagsan noo fidiyey marka hore waa mahadsan yihiin 14 iyo 100 iyo qur-aanka cadadiisaan ku salaama ka bacdina ilaahay waxaan uga baryayaa nasri fara badan iyo naxariis aakhiro iyo nimco adduunba kurbo badan iyo fakar badan ayaa nahayey iyo dhib badan waad noo gargaarteen ilaahay haydiin gargaaro lacagtii 30 kun aheed oon codsannana waan haysannaa akoonkay noogu jirtaa maanta waa talaada berri oo arbacaan ah waxaa weye diyaaradday ku qoran yihiin ilmihii waa la qaadayaa marka ilaahay shiiqaana wixii wacdi iyo waana ahayna idiin sheegayo wanaagsanaa anigu ilaahay baan idinkaga baryayaa nasri iyo naxariis iyo nacfi fara badan meesha aad joogtaan idinka iyo awlaadiinna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu